aad baan idin salaamaya saaxiibada meelkaas ha joogtaan halkan warashka True saaxiibada ku soo dhawaada barnaamijkeeni isbarbardhiga labada fanaan maanta waxaynu isla barbardhigi doonaa Nadiir Nayrus iyo waliba Shaadiye Sharaf iyo waliba Nadiir Nayrus ayaa ah markaa saaxiibo waxaynu eegi doonaa ugu horeyntii Yaasin Maseer badan yaa romanticsan Shaadiye Sharaf iyo waliba Nadiir Nayrus yaa kulkulul markii dabcan la xanaaqsan yahay ma Shaadiye Sharaf ayaa kulkulul mise waxa kulkulul Nadiir Nayrus sidoo kale waxaynu eegi doonaa yaa markasta hadiyad u keena lamaanahooda waa Nadiir Nayrus iyo waliba Shaadiye Sharaf weeyaan sidoo kale yaa dulqaad badan sidoo kale yaa tanaasul badan intaasi in ka badan ayaa muuqaalkan ku eegi doonaa waliba xog ku saabsan labadan fanaan ayaynu eegi doonaa saaxiibada waxaan idinka codsanaynaa in YouTube-keena rashka True Love subscribe gareysaan sidoo kalena like-taan uga caawisaan run ahaantii saaxiibada waxaanu leenahay soo dhawaada mininkiina weeyaan haddii aynu ugu horeyno saaxiibada Shaadiye Sharaf iyo waliba Nadiir Nayrus waa laba saaxiibo aan kala dhicin maalintii shalay ahayd waxaynu markaa dabcan aynu isla barbardhignay Shaadiye Sharaf iyo waliba qaaliladan badi markaasi qaaliladan iyo Shaadiye Sharaf waxa markaasi dabcan isbarbardhig markaynu sameynay waxa dhanka u badan weeyaan maseer markii la yiraahdo romantic markii la yiraahdo kulkul markii ama yaa kulul oo kale yani waxa u badnaa Shaadiye Sharaf laakiin maanta waxaynu eegi doonaa Nadiir Nayrus iyo waliba Shaadiye Sharaf ugu horeyntii Nadiir Nayrus waxay fanka ku soo biirtay sanadka markuu ahaa 16 ilaa 17 Shaadiye Sharaf sidoo kale isku waqti ay ahaayeen waa dad saaxiiba waa dad markaasi isla loolami jiray oo hadda saaxiibo ahaayo hadda mataanayaasha fanka ay kamid ahaayeen dabcan Nadiir Nayrus saygeeda waa Caydid Jawhar weeyaan halka Cabdi Fataax Yarana dabcan way soo jeedaysa tahay Shaadiye Sharaf Fataax Yare dabcan waan ogsoonahay 15 ilaa 16 ayuu fanka ku soo biiray sidoo kale waxaanu ogsoonahay in Caydid Jawhar qudhiisa fanka uu ku jiro ilaa 5 sano ilaa 4 sano Nadiir Nayrusna sidoo kale ilaa 5 sano 6 sano 7 sano ay fanka ku jirtaa inkastoo Shaadiya iyo dabcan Nadiir Nayrus ay ka horeeyeen fanaanka lagu magacaabo Cabdi Fataax Yare waliba Caydid Jawhar labadu ay ka horeeyeen ugu horeyntii hadaynu eegno dabcan Shaadiye Sharaf waxay haysataa wiilkeeda Maxamed Yare halka Nadiir Nayrusna ay iminka barajay leedahay kale waan rajeen doonaa in sanadaha soo socda ama bilooyinka soo socda ay hooyo Soomaaliyeed noqoto waayahay markan ayaa la isweydiinayaa yaa masiir badan Shaadiya iyo waliba dabcan fanaanada codka dabacsan ee Nadiir Nayrus dhanka masiirka markii loo eego run ahaantii Nadiir Nayrus iyo Shaadiye Sharaf waa labo oo dhanka masiirka qatar ku ah waxaad arkaysaa muuqaalo markii la duubayo dabcan dhanka masiirka laakiin masiir markii loo eego anigoona ku fogaaneynin Nadiir Nayrus aad iyo aad ugu masiir badan tahay sababta hadda kor baranka ay sameysay barankii markii ay sameeynaysay kadibna dabcan oo yani Caydid baa baranku sameeyay Nadiira haan waxay tiraahday basan tahay aniga ina ifurtida rabaa micnaha markasto ee gabar ay ku degdegayso furitaan oo yani meesha ugu dambeysay taagan tahay micnaha marka waxaanu dhihi karaynaa Nadiira iyo waliba Shaadiye Sharaf dhankaasi masiirka markii loo eego Nadiir Nayrus ayaa masiir badan dhan kale yaa hadaynu eegno yaa romanticsan Shaadiye Sharaf FC fanaanada codka dabacsan ee Nadiir Nayrus ruuxantii dhanka romantic markii loo eego ruuxantii anaga Soomaaliyeedna romantic waxaynu u naqaanaa wax kale laakiin romantic muhiimadu waxay tahay farxad reen in maaragtay odaygaaga uu markasta ku faraxsan yahay intaasi weeyaan marka farxad iyo reen iyo maaragtay romantiga oo yani in la muujiyo waxa dhihi karaya Shaadiye Sharaf ayaa u badan dhan kale iminkan dad badan ayaa isweydiinaya yaa kulkulul markii la xanaaqsan yahay caleelahe midan dad badan ayaa isweydiinaya saaxiibada haddaas leedahay dabcan dhanka yaa kulkulul Shaadiya FC Nadiir Nayrus comment noo soo qor oo dheh labadaas midkood Nadiira ama Shaadiye Sharaf laakiin aniga waxa leeyahay dhanka in dabcan aad iyo aad in la kululaado oo markii la xanaaqsan yahay waxa u badan Nadiir Nayrus aad iyo aad way hadin kaleeto markasta yaa hadiyadu keena lamaanahooda alalahay labaduba horta waa dad YouTubera waa dad saaxiiba wayna jiraan micnaha in maxaa la yiraahdaa hadiyad la isku keeno ruuxantii mid hadiyada ah boqolkiiba 88 waa Shaadiye Sharaf weeyaan Shaadiye Sharaf guuleyso ayaanu kuleenaa walaashay
يعني waa research aynu sameyno weeyaan research aynu sameyno weeyaan laakiin wixii qarsan ma sheegi kareeno yani inta badan waynu aragnaa hadiyad qaaliya oo ay u keenayso shaadi sharaf saygeeda hadda mar dhow ugu dambeysay telefoon loo keenay ninka odayga aad iyo aad marka waxa waaye inta kale haddii aynu eegno ya tanaasul badan tanaasul marka loo eego run ahaantii shaadi sharaf waliba Nadiir Nayrus shaadi sharaf waa inan maaragtay maasha Allah iska dabeecad wanaagsan sidoo kale Nayrus laakiin tanaasul marka loo eego waxaanu leenahay waxa tanaasul badan shaadi sharaf waayahay saaxiibada waxa u maleynayaa in inta badan saaxiibada iminka barnaamijka la socotaan sidoo kalena wixii aynu qaladnay waa noo sixi doontaan marka inta badan dhanka masiirka waxa qaadatay Nadiir Nayrus ayaa qaadatay dhanka romantiga shaadi sharaf baa qaadatay dhanka inkastoo maaragtay dhanka in la kululaado markii la xanaaqsan yahay kulkulnaan macnaha waxa qaadatay aad iyo aad Nadiir qaadatay marka hadiyad in la isku keeno waxa qaadatay shaadi sharaf tanaasulka waxa qaadatay shaadi sharaf waayahay waxaad moodaa shaadi sharaf inay u badan tahay shaadi sharaf inay u badan tahay kulay muuqaalkan intan ayaa ku hakinaya ku soo gabagabeynaya saaxiibada waxaan idinka codsanayaa in YouTube-kana rashka True Love no subscribe gareysaan qaaliladani waliba shaadi sharaf waynu aragnay shaadi sharaf iyo sidoo kale waxaynu aragnay Nadiir Nayrus marka soo kumatay gareeya yaa sarjeenaysan yaa soo bandhigayna idinka qudhiina waad ka hadli kareysaan kulanka soo socda ama haduu abeed maalinta kale oo muuqaalkiisa xiga yaa jecelshiin inaan idin soo bandhigno labo fanaan labo saaxiibo labo dabcan kala dhicin commenti soo qora saaxiibada waxaan idin leeyahay muuqaalkan intan ayaa ku hakinaya waxaan idinka codsanayaa muuqaalkan hadduu idin soo gaaro inaad like noogu caawisaan sidoo kale haddaad share awoodaan share noogu dartaan sidoo kale subscribe haddaad no awoodaan na subscribe noo saartaan saaxiibada waxaan idin leeyahay muuqaalkiisa xiga intan ayaan ku soo hakinaya aan ku soo gabagabeynaya nool kulanti bye bye